ciyaartan oo u dhaxeysay jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalooyinka Berna ee dalka Switzerland iyo magaalada Innsbruck ee gobolka Tyrol ee Austria waxay ahayd mid lagu xoojinayay xiriirka jaaliyadaha ku nool qaar kamid ah wadamada qaaradda Yurub. ciyaartan oo aad u xiiso badneed isla markaan labada dhinac ay soo bandhigeen ciyaar wanaag ayaa waxa guusha ay raacday ciyaartooyda matalaysay jaaliyada magaalada Innsbruck ee dalkan Austria. kasoo qaybgalayaasha kulankan ayaa aad ugu riyaaqay ciyaar wanaaga ay soo bandhigeen labada kooxood ee matalayay wadamada Austria iyo Switzerland. labada kabtan ee hogaaminayay labada jaalidood ee magaalooyinka Innsbruck iyo Berna ee Austria ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan kulankan xiisaha badan ee dhaxmaray labada kooxood. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan soo booqno wadankan Austria dadkan degan walaalaheen Soomaalida jaaliyada magaalada Innsbruck annagoo ka imaan wadanka Switzerland halkan waxaan u imaan ciyaar walaaltinimo saaxiibtinimo aad iyo aad ugu faraxsanahay sida sharafta leh nolol soo dhaweeyay annagana waxaan rajaynaynaa insha Allah sidaas ka wanaagsan oo soo dhaweyn doono annagoo ka imaan wadanka Switzerland caasimadiisa Berna. Bismillah maanta waa ciyaarnay ciyaar aad u qurux badan oo saaxiibtinimo walaalnimo oo xoojinta isdhexgalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha joogta meel kasta walaalahan waa soo dhaweynay waan la ciyaarnay ciyaar xiiso badan oo isdhexgalka ah insha Allah anaguna waxaan rajaynaynaa markan inaan tagno xagga soo ciyaarno aad game nabadeed aad si wanaagsan noogu soo dhamaaday waana ku faraxsanahay inaan la ciyaarnay dhigeena Switzerland. ciyaartan ayaa ugu dambeyntii ku soo gabagabowday jawi degan oo ay aad ugu riyaaqeen dhammaan ka soo qaybgalayaasha ayagoo sheegay in loo baahan yahay in la xoojiyo xiriirka walaaltinimo ee ka dhaxeyso jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalooyinka Berna ee wadanka Switzerland iyo magaalada Innsbruck ee Austria.